Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad adduunka ka joogtaan. Halka aad naga daawanaysaan waa baraha Facebooka iyo YouTube-ka aan ku leenahay ee Burhan Channel. meel kasta oo aad adduunka ka joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hamoogaan in aad muuqaalka like noo saarto maxaa yeelay waxa ay ka dhigan tahay in aad muuqaalada halkan aad ku soo gudbino aad la dhacsan tahay. sidoo kale hamoogaanina in aad barteenan YouTube subscribe dhahdaan maxaa yeelay waxaad kala socon kartaan xilli kasta dhacdooyinka ugu waaweyn ee maalinkaasi ka dhacay caalamka oo idil. badanaa inta ku xirnaa YouTube-keenan waxa aad kala socoteen barnaamijyada ka dhacay dalka Mareykanka. lacago 250 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa waxa dhunsaday dadyow Soomaaliyeed oo ku nool Minneapolis gaar ahaan Minnesota. sidoo kalena horay ayaan idinkugu sheegay in lacagahaasi ay dad badan oo Soomaaliyeed dalalka Aasiya iyo Afrika ay u kala dirsadeen. laakiin sheeko cajiib ah ayaa maanta waxa ay ka dhacday dalka Kenya gaar ahaan Jomo Kenyatta Airport. kastamka canshuuraha ee garoonka Jomo Kenyatta International Airport markii magaciisa la soo gaabiyana loo yaqaano JKIA ee magaalada Nairobi ayaa gacanta waxa ay ku dhigeen 6 haweeney ah oo asalkoodu yahay Soomaali kuwaasi oo doonayay lacag dollar ah ay kala soo degaan airport-kaasi. sida aad sawirradaba uga jeedaan boorsooyin iyo baco waaweyn ayaa haweenka Soomaaliyeed waxa ay ku sitaan lacag dollar ah oo aad u fara badan. ilaa iyo hadda inta la og yahay qiimaha lacagta waxa lagu sheegay 857 dollar oo dollarka Mareykanka. sidoo kalena waxa ay u dhigantaa markii laga dhigo shilinka Kenya 103 milyan oo shilinka Kenya ah. sida ay sheegeen saraakiisha eedeysanayaasha ayaa waxa lagu kala magacaabaa Xafsa Warsame, Cabdi Xasan, Cabdi Faarax, Axmed Cumar, Xasan Xabiiba Cabdi iyo waliba Hodan Maxamed ayaa lagu qabtay garoonka Jomo Kenyatta. waxayna ka soo ambabaxeen dalka India iyagoo soo raacay diyaaradda Ethiopian Airlines ee nambarkeedu uu yahay ET 318. sawirada ayaa muujinaya walxo lacago u eg. xaqiijinta labaadna waxa la xaqiijiyay shandaduhu ay ku jireen lacago dollar ah oo aad u fara badan. hay-addu waxa ay sheegtay in wixii ka dambeeyay qabashadaas ay lacagaha ku shubeen kastamka garoonka Jomo Kenyatta ee Nairobi. bishii Janaayo ee sanadkan dhacdo tan la mid ah ayaa ka dhacday JKIA markii saraakiisha kastamka ay xireen muwaadin Bahraini ah kaasi oo watay 110 milyan oo shilinka Kenya ah. war qoraal ah oo ay ka soo saartay KRA ayay ku sheegtay in la qabtay nin rakaab ah oo magaciisu lagu sheegay Khalid Jamal Saciid kaasi oo doonayay in uu u duulo Bahrain isagoo ku safrayay shirkadda Egyptian Airlines waxa uuna transit ku ahaa Jomo Kenyatta Airport. haddaba intaasi kadib ilaa iyo hadda waxa ku socda haweenka baaritaan halka lacagaha ay ka keeneen iyo halka ay u wateenba. laakiin isla markiiba waxa soo baxaya warar sheegaya dadkaasi baxsadka ah ee ka soo duulay dalka India ee airport-ka Jomo Kenyatta maanta lagu qabtay in asalkooda ay yihiin muwaadiniin dalka Mareykanka u dhashay kaliya waa Soomaali. xogta aan helayno ee hordhaca ah ayaa sheegaysa ay wateen baasaboorka United States of America. isla markiiba waxa soo baxay warar sheegaya in FBI-da Mareykanka oo isbuucii hore xabsiga u taxabtay ilaa 12 Soomaali ah kuna soo eedeysay in 250 milyan oo dollarka Mareykanka ay dhaceen in ay ka warhaysay 6 haweenka ah ee watay lacagta 1 milyan oo dollar u dhow. sida aan horeyba barnaamijyadeena aad ku soo daawateen waxa jiray muwaadiniin badan oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya kiisaskaasna loo haystay in ay iskaga carareen dalka Mareykanka. haweeney ka soo jeeda dalka Ethiopia gaar ahaan qowmiyadda Oromiya ayaa waxa lagu qabtay muddo hadda laga joogo 2 isbuuc airport-ka Minneapolis taasi oo isku dayeysay in ay dalka iskaga baxdo. sidoo kale waxaa jirta haweeney Soomaali ah oo ayadana laga soo qabtay xadka Mexico iyo dalka Mareykanka. sida aad wada xasuusataanba isla isbuuc ka hor waxa airport-ka Chicago ee dalka Mareykanka lagu qabtay deeq darajo oo ah wariye Soomaaliyeed
isla markiina FBI-da ayaa su'aalo waxa ay ku dhex weydiisay airportka isagoo oo la sheegay in safarkiisa uu ahaa in uu ka dago magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. dadkaasi dhammaantood iyo kuwo kale oo fara badanba gacanta waxaa kiiskooda ku haya FBI-da dalka Mareykanka. lacagihii la dhacay ee 250 milyan oo dollar ahaa hantidii lagala baxay markii laga soo gudbo baabuurta iyo guryaha ay ka gateen dalka Mareykanka. waxaa jirta in lacago cadaan ah oo kaasha ay u dirsadeen dalalka Aasiya iyo Afrika. FBI-du Mareykanku cidda ay daba gasho ilaa ay salka soo taabato kama harto. Soomaalida barnaamijkan loo haysto ayaa waxa ay gaarayaan ku dhawaad 200 oo qof. qofka ugu yarna waxa uu cunay lacag gaaraysa ku dhawaad $1 milyan. sida barnaamijkeeni horeba aad ku soo daawateen waxaa jirtay haweeney Soomaaliyeed oo qaybteedii koowaad barnaamij ay uga hadlaysay bilow iyo dhammaad sheekada ka dhacday dalka Mareykanka inaad xalay barnaamijkeeni kan ka horeeya aad ku daawateen. isla qaybtii labaad oo ah qaybta ugu dambeysay sida ay wax u dhaceen halkan ayaad ku daawan doontaan. anigu waa Burhaan Cali, halkan waa Burhaan Janaal. waxaa idin sii deynayaa qaybtii labaad ee haweeneydii ka sheekeynaysay bilow ilaa dhammaad. muuqaalka like noo saar. inta aan dib isku arkeynana waxaan idinkaga tegayaa sama iyo salaama. milyan lacag yar ma ahan. dowladda waa inay lacagti adduunka ku bixiso midda kale inay cadeyso. so intii baxday in la mid ama ka badan kaga baxayso dowladda inay dadkan soo qabato, inay soo xirto, inay soo cadeyso guryaha hantida la leeyahay lacagahana lagu gaday la gado, dadkii la kala saaro. qaar waxa la siin doonaa immunity waxa la dhaho oo haday information kay bixiyeen oo kaleeto uu noqdo information macluumaad dad ayaga ka tira badan ama case kale cadeen la ee dowladda ay muxuu ahayd ay information ka soo qabato kale ayaga waxa laga yaabaa in laga fududeeyo kale. marka waa mid ugu weyneyd oo wadanka waliba lacag noocan oo kale oo la lunsado. lacagtuna intaas way ka badan tahay laakiin inta hadda la qoray ayaa intaas ah. waxaan oo dhan ani waxa ay dhici weysay hal qof oo dumar ah oo waliba marka akhrisid the way u sameysay oo kale waxa it was not even that smart. wax oo muxuu ahayd sophisticated oo sariiqdooda ay adag tahay oo qof kasta uu arki karin. ma any person oo akhriyo warqadaha ayaa wuxuu arki karaa waxyaabaha isticmaashay oo kale waxaad u fudud inay ahaayeen. waxay ka faa'iideysatay waqtiga, waxay ka faa'iideysatay immigrantska, waxay ka faa'iideysatay Soomaalida, diinta madowga, all of those things oo la isku daray ayay ka faa'iideysatay. meeshay furatay shabaqayna dhigatay basically everybody else oo soo hoos galayna wuu u tagay. marka do the people oo ayaga la qof la siray ma jiro. qof walba warqada asaga saxiixay dad qof walba ilmaha saqiirka ah oo magacyadooda qaal runta laga sheegay qaar beenta laga sheegay yes kuwaas dambi kuma laha. laakiin qof weyn hadaa tahay oo aad waraaqihii aad saxiixdood meesha gelisay oo dambigeeda aan waa la isiri ama la ima sirin you can say like waa isku aadaadin kartaa a little bit but hadaa dambiila tahay dambiila tahay. laakiin more than anything else markii masaajidada ama dugsiyaasha meelaha masaajidka Soomaalida ay ka muuqato kaleeto oo ah meelaha bartilmaameedka ummadda muslimka u ah ee soo hoos galaan tan oo kale ayaa waxay tahay dharbaaxa aad u tiro badan. marka hadee wax kale ka soo baxaan haddii alla idmo oo muxuu ahayd uu case-ku sii furfurmana more waa idinla socodsiin doonaa. and I think intaas le waay laakiin because it has a lot of papers raaqa aad u tiro badan ayuu leeyahay. Columbus waxaa kaga jirta 2 qof kaga jirta oo labadoodaba waa dambiga dadka lagu soo oogay ayay ku jiraan. anybody else ay taabatayna gadaala kuwa kalena wixii lagu soo daray looga soo dari doonaa haday jiraan oo kaleeto ama intaana deeraban ku ekeenayaan oo lama oga taas. dowladda wax ka soo baxay waxa la isla dhexmarmuroy war la isla dhexmarmuroy waa dowladda wasaaradda cadaaladda waxba ma sheegin laakiin waxay abuurtay diirad iyo toosh aad muxuu ahayd weyn oo wadanka dhan la soo fiirnay sababtoo ah even odayga governorka Minnesota way saameysay sababtoo ah wuxuu eedeeyay maxaakinkii joogay Ramsey County dharbaaxana ku soo laabatay laftarkiisa
wuxuu yiri adaa waxaan ogolaaday markaas wuxuu yiri ani warigeyba idinma dhihin wixiina soo cadaystaan in idin yiri adaa meesha soo galay oo farahaaga dhaadheerarka badan meesha soo galiyay way ku soo laabatay because sababtoo ah 250 milyan la xaday marka waxa la isweydiinayaa dawladdu waxay leedahay albaabo kala xiran marka albaab hebel yaa furay xaakinkiina way ku soo laabatay wuuna isdifaacay marka even dawladda dimuqraadiga oo Minnesota waxay ku tahay siyaasad ahaan ribaaxo aad u tiro badan ayay ku tahay intaas oo keenaa marka qofkii su'aal qabo meesha ha soo galiyo su'aashuna waa inay ahaataa only feeding our future wixii immigration iyo waxaas ku sayana insha Allah habeen waxaan soo galinaa 2 habeen hadda ka bacdi hadii alla idmo ama habeen dambe hadii ii suurowdo qaxootigii lambar baa laga sheegay waxaa la furi rabaa baqtiya nasiibka arbacada hadii alla idmo October ayaa la furi doonaa kuwaas marka inaan qayb kaleeto oo sharaxaad dheer ayay qaadanaysaa hadii alla idmo soo waqti gaaran siinaya tan oo dhowr jeer aad igu soo celceliyay ayaan rabay inaan caawa sharaxa markaa soo waxaan furayaa comments-ka wixii su'aala oo qof uu fahmi waayay oo quseeyo kayskaan ka jawaaba insha Allah dadka kale ku jira naagta case-ka dhan xukuntay naagta cadaanka ah oo feeding our future madaxda ka ahayd Soomaali maahan waxaa kaloo ku jirta Oroma ku jirtay naag la dhaho Makfir Hussein waxay bilgareynaysay 250,000 toddobaadkii ayay waxay dhahaysay intaasoo qof aan siiyay 250,000 waa in la ii soo ceshaa so intaasaa ku jirtay laakiin dadka ugu badan oo aqlabiyada ka ah ayaa waxay yihiin Soomaali ayaa ugu badan dadka ugu tirada badan oo ku jira laakiin way ku jiraan dadan Soomaali ah laakiin ma badna aad bay u yar yihiin maya lama sheegin qofka lacagta ugu badan xaday taas inay cadeeyaan waqti bay qaadanaysaa BB loan-ka laftarkiisa wuu soo noqon doonaa mar uu soo noqdobo waliba dadka sida khaldan hadii lagu qaatay oo kale waa aragteen hadda wuxuu ku soo laabtay nimankan la dhaho Republicans-ka markii la sameynayay cafinta student loan-ka dad badan oo Republican ayaa ka dooday kulli waa la soo bandhigay lambaradii lacagihii ay qaateen oo laga cafiyay oo kaleeto marka dawladda federaalka ah lacagteeda 20 years 10 years anytime ay noqotay so because waa lacagta dadweynaha oo shacabku ay leeyihiin oo canshuurta ah lacagtaasina dhaqso kuma tagto qof wuxuu dhihi karaa maanta aan soo baaro aan fiiriyo marka taas waxba kama soo bixin taas mid kale everybody saameynaysa dad aad u fara badan oo gobolka kala degan oo gobollo badan degan lagu soo qabtay already oo loo xirxiray aad u tiro badan oo lacag aad u fara badan xaday marka laakiin wax gaar oo kaleeto oo soo baxay yes Charter School-ka way ku jiraan qaybo kamid ah waxay dilaasheen Bravo Cafe oo kaleeto Discovery Charter School-ka la dhaho kale ku jira tuuga la qabtay tuuga waa dadka waa la qabtay waxa case-ka dadka waxay saddex mar oo conspiracy-ga ah waa qof of course qof gudbiyay dooda qofku ahaadaba taasna lama sheegin laakiin se markaa fiirisidoo kaleeto sida ay waraaqaha dawladda u qoran yihiin waxyaabaha isku toosiyeen oo kaleeto maray ahaataba waa laga daba imaan lahaa ilaa ibits hadda 2 sano iyo xoogaa ay ku qaadatay laakiin waa very very simple thing waxyaabaha ay sameeyeen oo kale sababtoo ah waxaa jira xisaabiye guud ayaa jira xisaabiye guud oo kaleeto hadii la keeni lahaa oo kale way soo noqon lahayd oo wax aad u adag maysan sameynin